السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh my god maxaa iraahdaa warwaa Safiya oo soo noqotay waxaa hurdi iigu dambeysay 24 saac ka hor doorashadan sugaayay waxa aan horta Ilaahay rabaa ugu horeyn ilaahayga waaxidka ah ee caadilka ah ee na abuurtay dad islaamahan nahay in aan u mahadnaqo ilaahayga qaadirka ah ee na guuleeyay ina u mahadnaqo Soomaaliya guuleysatay maanta waxaan rabaa inaan u mahadnaqo xildhibaanadeena Soomaaliyeed oo naga qaaday meel fool xun oo codsigeeni iyo murugadeeni iyo oohinteeni naga aqbalay ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay caadilka waxaan ka baryayaa Soomaaliya inay guuleysato ilaahay waxaan ka baryayaa inaanan dulli ku noqonin ilaahay waxaan ka baryayaa madaxweynaha cusub inuu noqdo mid dadka mideeya waxaan ilaahay ka baryayaa Soomaaliya oo sharaf leh ogaada shacab baa wax bedela I really want to be emotional waan rajo dhigay Soomaaliya waan ka rajo dhigay awal waxaan rajaynayaa in rajada noo soo noqoto aniga waxaan rabay gruubka isbedel doonka inuu qof soo baxo ku haboon Sheekh Shariif Farmaajo waa suu kaymid inta kale meesha ku jirtay muhiim waxa ay ahayd in wadanka isbedel yimaado Soomaaliya waxaan ka soo tagay sanad iyo bar فالحمدة يا على الحمدة وصوتك ودن كيجينا نعم إهن وحن أنصدق إن الله دجالمه ما سوق وحن إسكودي إن الله دجالمه 4.5 دت كيج من نبعي قبيل من نبعي كوا أوقات قبيل إن دولان كوها وحن دي ذا دولين ما أنت دت كوا أوقاتين إن رجعنا أين حر أهين إن Soomaaliya حر أهين أيام سو أركي أفرت السنة أن Soomaaliya شوقي وأن سو قرعمي تبدو أن شعلها لله وحلينا من نقانو وحدة كلاي من نقانو قفل بقعدك Soomaaliya كشرب على الليناي قفكي هلا والويناي ولا دلاي وحدي لا ما نأقونين وحكده بتجاي ما نأرك ciidankani ayagoo qalqalalay wiilasha yararka meelaha taagtaagan oo iyaga ka geesisan kuwa shisheeyaha marka qaraxyadu dhacaan 5 daqiiqo uga saaraan nimanka shayaadiinta oo baladu noo soo dirto waxa noo soo diray ma aqaaneen dalkeena duulaan cad ayaa lagu soo qaaday raggayagu ma fahmin intooda badan rag badan calooshu shaqaystay noqdeen qof damiir la meel ku noolaan kara ma ahayn waan jeclaa dalkayga waan aaday nafteeda khatar u galiyay 2012 balse dalkayga waxaan soo ogaaday inuu ahayn meel la isku haleyn karay waxaan ka xisaabtamay waxa la yiri kaal xildhibaan noqo Safiyo xildhibaan ma noqon karaa ay sababtoo ah aga raali aad waxba khaldamay u maleena waxbaan taabtay I don't know waxaan khalday waxbaan taabtay anyway I really want to be emotional noqdo laakiin wallahi billahi tallaahi dagaalka iga daacad u ahaa waan niyad jabay raggeena waa ka niyad jabay Soomaalida xildhibaanadeedan ka niyad jabay waxaan idin sheegayaa guusha maanta la helay qabiil ma laha guusha maanta la helay Soomaali oo dhan baa leh guusha maanta la helay Soomaali oo dhan baa leh waxaan rabaa inaa ilaahay caadilka oo casiiska oo maanta na joojiyay adduunka oo na tusay xildhibaano damiir leh in la helo damiir leh oo naftooda khatar
wadada u dhigay waa ogahay waxay la kulmi karaan dalka xor ma aha laakiin waa mintideen hadduu sheekh shariif soo bixi lahaa hadduu farmaajo soo bixi lahaa ma kala jecli isbeddelaan rabe inuu dhaco oo rag aan maaragtay horgalo laga dhiganin oo la iska soo hormarinin ay dalka qabtaan marka waxaan idiin sheegayaa ilaah baa mahad leh ilaahay u xamdi naqa ilaahay u toobad keena Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dawladda cusub inay dadka raadiso waliba madaxweynaha waxaan ka rabaa hadii ilaahay idmo inuu dadka Soomaaliyeed raadiyo oo isu keeno tan ugu horeysa waa taas dadka kala shakiga iyo cuqdada iyo dhibaatadu kala gashay inuu u yeero inuu isku hareereeyo dad wanaagsan inuu isku hareereeyo dad wanaagsan madaxweynaheenu hadii ilaahay idmo waxba ka khaldan waxbaan taabtay iga raali ahaada madaxweynaheenu inuu dad isku hareereeyo wanaagsan oo wadaniyiin ah inuu xusho in dadka cuqdada iyo kala shakiga laga saaro waa taas waxay nooga faa'iideystaan shisheeyaha waa taas waxay nooga faa'iideystaan kuwa raba inay dalka burburiyaan cadaaladdan kula dardaarmaya madaxweynaha cusub iyo dawladdiisa cusub uu dhisan doono cadaalad inay ku dadaalaan Soomaaliya waxa lagu soo celin karaa cadaalad wax ka hooseeya male cadaalad kama hooseyso qabiil ha eegin gobol ha eegin reer ha eegin saaxiibo ha eegin waxaa la dagaalantaa cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa madaxweyne waxaa la dagaalantaa cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa Soomaali waa hananaysaa maanta Soomaali waa hanatay waxa ku hanatay hal wax banaankaas inta istaagtay adiga gurbiga ku jirtaan baa waxa tiraadeen wadankeena faragelinta laga daayo oo naftiina aad halis wadada u dhigteen ilaahay caadilka isku haleynaysan cid kale isku haleynaysan malawaan oga yaa waxa kale oo la rabaa in cadaalad saa u hanatay dadka madaxweyne in cadaalad keento oo aad ku dadaasho cadaalad groupkii meesha ka tagay waa Soomaali lama nabca dadka qabiil lagu ma nacaynin wax lagu nacayo kala male waxay isugu jireen actually qabiil walba Soomaaliya kamid ah cid gooni ma ayna ahayn group iswatay ahayn oo huwan ah laakiin wadadii ka habaabeen saxda ahayd waxay ka habaabeen cadaaladii waxay ka habaabeen inay musuqmaasuqi la diraan waxay ka habaabeen inay hogaankii maaragtay ee dalka u baahnaa laga helo madaxweyne waa hawl badan wax ku haysta waa ogahay hawsha ku haysato waa badan tahay ma sahlanaan doonto laakiin ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu ku garab galo ilaahay waxaan kaaga baryayaa in aad noqoto waa cusub adiga iyo dadkaaga aad xulan doonto oo ay dalkan wada fiican iyo meel wanaagsan ay geeyaan oo ka qurux badan meesha amaanta naalo markale waxaan rabaa inaan u xamdi noqo ilaaha caadilka oo ducadeeni iyo baryadeeni aan barinay naga yeelay number 1 ilaaha baa mahad iskale number 2 waxaan rabaa inaan u mahad noqo xildhibaanada baarlamaanka xildhibaanada na xoreeyay waana xoreeyeen maanta waa xorownay raggii baarlamaanka ee fadhiyaan dhex fadhiyaan u hanjabay dalkeena oo yiri raggaanaan rabnaa iyo ninkaanaan rabnaa ama hebel baan rabnaa raggiina xoreeyay waa xildhibaanada Soomaaliyeed oo qolo walba isugu jirto gobol walba ka timid ayagaan xoreeyeen marka waxaan rabaa inaan ilaahay ka suko xildhibaanadan u mahad celiyo ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay iska dhaafaan qabyaaladda iyo cuqdada iyo fidnada aad ka shaqeynaysaan cadaalad darrada aad ka shaqeynaysaan qofka xun ee walaalkaaga oo xumaanta ku taageerayso oo ku garab istaagayso hadaan taa ka gudubno waa guuleysanaynaa ficilna waa iska celinayna wadamada dariskaana ma aragtay in anaga nagu daydaan mooyaane hostage ma noqonayno waxa hostage ugu noqon wadamada dariska anaga is cunayna qofkaygi wanaagsanaa oo muuqday aan cunayna oo laqayna oo jarjarayna qofkii xumaana waa bilayna oo cirka u qaadayna waa waxa wadankeena ku rogmaday aniga intaasaan ku soo koobayaa maanta farxadii oo hina iga keentay ma rabin inaan emotional noqdo laakiin dagaal dheer oo dad badan aan galnay ayaa iga keentay murugada farxad ayaan la ooyay muruga maaha farxad ayaan la ooyay garanaysaan dagaal dheer aan galay waa wada ogyihiin dadka Facebook-ga ku xirnaa qaar badan waa ka xumaadeen waxyaabaha aan ku hadlo laakiin Soomaaliyan aniga
u dagaalamaya reer ma kala jecli in adeer ma kala jecli qof kale ma kala jecli Soomaaliya inay sharaf iyo karaamo iyo qurux badnaataan u dagaalamaya waan u dagaalamaya inta nolosheeda ka dhiman hadii ilaahay idmo maantana raja soo gashay awal waan quusto inaan tagaan rabi tago iska tago yaa waay waan ii jabay laakiin raja soo gashay waxaan filayaa in wax isbedeli doonaan marka ala kulli xaal salaamu calaykum daal badan iyo rafaad badan it's worth it dagaalkii iyo wixii aan galnay it's worth it ilaahay Soomaaliya waxaan uga baryayaa inay hagaagto ilaahay waxaan uga baryayaa in nasri uu u noqdo maanta ilaahay waxaan uga baryayaa dadka inuu ilaahay qalbigooda isu soo dumo ilaahay waxaan uga baryayaa inuu cadowga ka xijaabo ilaahay waxaan uga baryayaa inaan noqono dad sharaf iyo karaamo leh mar kale waan noqon karnaa maanta tusaalaha idin noqoto salaamu calaykum waa Safiya